Somaliland maanta adkaatay sursur gasho oday cimaamad sita oo sharaf leh oo birmadgeeda oo karaamo leh oo suldaana oo madaxa noo saaran ayaa ka saara waxaan arkayay inan dimaashidaya oo mar hore social media fariin uga diray inantaas waxa la hooda Cabdi Muuse walaalhooda waxaan ku oranayaa arrimaha markii halka timaado rag iyo rabbi bay Somaliland leedahay halka markii timaadana ragga Somaliland ayaa kala baandeeya inagu dumar baynu ka nahay dib baynu uga fadhiisanaynaa ururkaagana bulhunguri baan aqaana bulhungurigaaguna oo ku sii shaqeynaya ilaa maanta ururada ka gaadho intii lagugu ixtiraamay inanima lagugu ixtiraamay beeshani waxa loo gartay in Somaliland kala badbaadinayso intii aqbashana hambalyaanu leenahay oo ururada ugu horeeyo ururka wato in abtigay Cabdilaahi Axmed Aamir aad baan ku hambalyeynaya arrinka adag Somaliland rag ba ka saara maamadan aad dhaliishay ee aad leedahay hay'adii dastuuriga ma ka tagnay hay'adii dastuuriga laga ma tagin mid walba mandate ba laga haysto iska ma galan meesha odayaasha qolo walba mandate ka haysan xukuumad iyo commission iyo maxay ahayd mucaaradba bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan ku taageerayaa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee jiida hore maxay ahayd Jamhuuriyadda Somaliland maxay ahayd ciidanka Jamhuuriyadda Somaliland oo Somaliland ay ku noolato 20 sano soo gaarsiiyay maanta halka ay marayso oo marnaba guul mooyaane aan guul darro la kulmin intii dhimatay waxaan leeyahay oo naxariisto intii dhaawactay ilaahay ha u boogadayo insha Allah bilaahi karim waxaan leeyahay marnaba qaranka ha u baqina waxaan arkay maxaabis la haysto oo si xun loola dhaqmayo badna la leynayo sideedaba qofka bini aadamka markuu maxbuus yahay inuu tacadiyo waa xaraan laakiin waxa sameynaya wada aan diin iyo dhaqan Soomaaliyeed midna lahayn ciidanka qaranka mar labaad mar saddexaad buu taageeraya guul iyo gobonimo noo rajeynaya waan idin la jirnaa waan garab taaganahay hiil iyo hoob waan la garab taaganahay guuleystan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland mar labaad halkan waxaan ka bogaadinayaa aad u soo dhaweynaya guddiga odayaasha beesha habar jeclo ee isxilqaantay nabadda iyo dhexdhexaadinta Somaliland u guntatay Somaliland waxay halka ku soo gaadhay kala dambeyn iyo isu tanaasul iyo odayaasheena dhaqanka oo marka xaaladu akirantay adkaato maxay haytooy isgarab taaga oo nabadda xanoo xasiliya waxaan xasuustaa 2003 Axmed Maxamed Aadan Siilaanyo markii 28 ka cod lagaga helay la yiri waa lagaga helay waliba isagoo guuleystay Cabdi Waraab ilaahay naxariistay aabihii Somaliland baan u aqaana ilaahay godka u nuure wuxuu ku yiri Axmed Maxamed Siilaanyo annaga ka badinay maantana annaga kule dalka u tanaasul Siilaanyo maanta odayaashaas maqlay oo waliba Xaaj Cabdi Waraab maqlay maantana odayaashii la mid yihiin odayaal dhax weeyaan qaranka Somaliland waxay ilaaheen annaga idin kala badbaadinayna go'aamaha ay soo saareen dhamaantoodna Somaliland way ku qanacday waliba khaasatan xisbiyadeedii isbahaysiga waliba khaasatan xisbigeedii wadani iyo madaxweynaha lixaad ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo guusha iskarab taagay odayaashana aqbalay haday adag tahay mar walba Cabdiraxmaan waa nin eega dantiisa ka horeysay danta qaranka Somaliland waxaan arkayay inan dimaashidaya oo mar hore social media fariin uga diray inantaas waxa la hooda Cabdi Muuse inan naadirka qaba walaalhooda waxaan ku oranayaa arrimaha markii halka timaado rag iyo rabbi bay Somaliland leedahay halka markii timaadana ragga Somaliland ayaa kala baandeeya inagu dumar baynu ka nahay dib baynu uga fadhiisanaynaa waxaad wadataa ururkaagana bulhunguri baan aqaana bulhungurigaaguna oo ku sii shaqeynaya ilaa maanta ururada ka gaadho intii lagugu ixtiraamay inanima lagugu ixtiraamay odayaasha masiirka Somaliland ka taliyay maanta hadaad ka hortimi waxay u dhigan tahay in aanad Somaliland rajo ka qabin taasna waxa cadeynaysa adigu hooyo too dumar baa tahay qaxa iyo balanbalka iyo maxay tibo hoofka inaga nooma qurux badna hooyo Somaliland baa tahay tii intay ku faraxdo hambalyeyn lahayd lambar 1 baan ka filay simaad garan afka hablaha haweenka Somaliland bad ku hadlahay wadna hambalyeyn lahayd odayaasha iskarib taagi lahayd odayaasha wad ka hortimo xatir beel Somaliland ku masiirka Somaliland duminaysa markii Cabdi Waraab Siilaanyo laha qaraarka adag qaado maxay haytooy lama lahayn Cabdi Waraab wuxuu ahaa nin beela iyo nin reera ee waa lagu qancay maantana beeshani waxa loo gartay in Somaliland kala badbaadinayso intii aqbashana hambalyaanu leenahay oo ururada ugu horeeyo ururka wato in abtigay Cabdilaahi Axmed Aamir
aad baan ku hambalyeynaya Soomaaliland qofka rajadeeda iyo quruxdeeda doonaya waa qofka maanta odayaasha iskarab taagay iyo go'aanka ay soo jeediyeen rooday dumar ha noqon baan oranaya maxay haytooy dumarnimadaadana ku ekow arrinka adag Soomaaliland rag ba ka saara cumaamadan aad dhaliishay ee aad leedahay hay'adii dastuuriga ma ka tagnay hay'adii dastuuriga laga ma tagin mid walbana mandate ba laga haysto iska ma galeen meesha odayaasha qolo walba mandate ka haysan xukuumad iyo commission iyo maxay haytooy mucaaradba waxaan ku leeyahay Soomaaliland maalintii adkaatay sursur gasho oday cimaamad sita oo sharaf leh oo birmadgeeda oo karaamo leh oo suldaana oo madaxa noo saaran ayaa ka saara haddii maxay tahay dumarnimadu ay ku qaadin hambalyeegan ku oranaya isbarqaba dimeesh wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh